xilli maalmihii la soo dhaafay afarta xaafadood ee magaalada Beledweyne ay ka socdeen olole isxilqaan ah oo lagu nadiifinayay qashinka ayay dawladda hoose ee degmada Beledweyne waxa ay soo saartay awaamiir la xiriirta dadka qashinka ku shuba meelaha aanan loogu talagelin maayarka magaalada Beledweyne Marwanada Tabaax oo shir jaraa'id ku qabatay xafiiskeeda ayaa sheegtay in dawladda hoose ay ganaax dul dhigi doonto ganacsigii lagu qabto isagoo qashin ku shubaya meel aan loogu talagelin qashinka waxaan rabaa inaan xuso bundooyinka dadka ku shubaya qashinka maqaayadaha magaalada Beledweyne bacdayaasha iyo dadka intay dadka masaakiinta u dhiibaan qashinka dhahayo intay wax yar oo lacag siiyaan qashinka naga fogeeya dhamaantood waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada nadaafadu waa iimaanka barkiis waxaan rabaa inaan si taliyaha saldhigga booliiska taliyaha ku-xigeenada iyo dhammaan laamaha amniga inaan u sheego cid alla cidii qashin la arko iyadoo ku shubaysa webiga laga qaado talaabo sharci ah waxaan rabnaa ka dawlad hoose ahaan inaan xoogga saarno nadaafadda magaalada Beledweyne waxaan oo diyaarsan shaqaale waxaan oo diyaarsan gaadiid waxaa jira kambaniyaal shaqo gali doona dhawaan oo si private ah la rabo inay xaafadaha uga qaadaan qashinka iskana bixiyaan tasiilaadka si wadanku noogu qurux badnaado qof walba inay gurigeeda qashinka intay ka soo bixiso albaabka ee dhigta ma qurux badno haddana waxaa ka sii foolxun in la yiraahdo in masaakiin ama qof masaakiin ah qashinkan qaad iga fogey asagayna ay garashadiisa noqoto inuu ku shubo bundooyinka dhammaan laamaha amniga ka dawlad hoose ahaan waxaan soo jeedinaynaa ama aan sheegaynaa cid alla cidii ay ku arkaan iyadoo ku shubaysa meel aan munaasib ahayn qashinka oo in talaabo laga qaado dhanka kale shacabka ku dhaqan Beledweyne ayaa soo dhaweeyay ololaha isxilqaanka ay hormuudka u tahay dawladda hoose ee degmada Beledweyne waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay ololaha isxilqaanka ah warmiishan qeyr Allah siiyo way mahadsan yihiin ilaaha noo soo diro noo keenay wuu soo qaaday in kaar baa ku dhacay hanaga qaada qurunka mar dambe ay noo soo dhigin meesha dad islaana umada nabi maxamed hadeeyin ha ka qaadaan magaalada dhexdeeda waxa qashina banaanka hageeya banaanka koro oo la deganayn hageeyaan wiilashaana way ku mahadsan yihiin ilaahay qeyr hal siiyo allah barakeeyaan leh allah barakeeyo wiilasha qaaday qashinka naga qaaday wixii madaxa wixii quruna wixii baqtiyo dameera halkaas ay noo soo dhigaan waan rafaadnay waan dhimanay ilaahaygi casa wajalaha wiilasha noo soo diray qeyr allah siiyo way ku mahadsan yihiin dadka deegaana ka mid ahay waan hurdi weyno waan hoyo weyno wixii dameera wixii quruna halkaas ay noo soo dhigaan kambaniga deegaan bile shaqadan qabanayo iyo mashruucan nadaafadda aan u mahad celinayaa waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin dadaalka iyo shaqada noo qabateen ee nadaafadda ku saabsan midda labaad dadka deegaankana waxaan leeyahay guryihiina qashinka inta ka soo dheeraysaan wadooyinka ha u soo dheeraynee guryihiina qashinka markaa ka dheeraysaan meelaha goobaha qashinka loogu talagalay ha loo qaado midda saddexaadna waxaan leeyahay dadka laamiga qarkiisa degan warlaamiga waa naloo dhisay way hagaagsan yahay adiga inta gurgaada ka kormariso laamiga inay biyo fadhiistaan sabab ha u noqon ee laamiga noo ilaali noqo mid ka maaragtay ka qayb qaatay in nadaafadda wanaagsan ee han noqonin mid ka qayb qaato cudurrada